maalinta ololaha doorashada madaxtooyada Soomaaliland oo maanta oo sabti ah ku beegnayd maalintii uu xisbiga mucaaridka UCID u lahaa kaambeynka ololaha doorashada madaxtooyada ayaa xisbiga mucaaridka UCID boqolaal taageerayaal ah ku soo bandhigay fagaaraha khayraadada magaalada Gabiley boqolaalkan taageerayaasha xisbiga mucaaridka UCID oo sita astaanta calanka xisbiga UCID iyo boodhar ay ku xadhan yihiin musharaxiinta xisbiga mucaaridka UCID kuwaasi oo socod ku soo maray jidadka magaalada Gabiley isla markaana ku dhawaaqaya kudhagiyo ay ku taageersan yihiin xisbiga mucaaridka UCID iyo musharaxiintiisa ayaa isugu soo biyashubtay khayraadada magaalada Gabiley halkaasi oo mas'uuliyiinta xisbiga mucaaridka UCID ay kala hadleen taageerayaasha idiga mahadnaqaya sida ballaaran ee mugaya miisaan kale ee nologa istaagteen taageerada aad u haysaan xisbiga cadaaladda iyo daryeelka idigoo muujinaya in xisbigaas uu yahay xisbiga dalka hogaamin kaliya xisbiga kulmiye iyo wadani waxa ay la yimaadeen hab ka duwan hababkii siyaasadda Soomaaliland lagu ololeyn jiray oo ah midna jeegaan inuu samaysto midna wax galaayna taasoo la doonayo in dadka lagu majara habaabiyo oo laga tago waaqica dhabta ah ee Soomaaliland ka jira oo ah in dadkani ay u baahan yihiin in lagu hago aqoon laakiin aan lagu hagin reer hebel baynu nahay reer Gabiley waa dadka nadiifa qabyaaladda waxaan fariin u dirayaa labada xisbi qaran ee kulmiye iyo wadani waxaan leeyahay Gabiley ha ugu soo talagalina inaad tiraadaan wallahi yaa reer Gabiley shacabweynaha reer Soomaaliland nabad baynu haysanaa barwaaqaynu ku jirnaa kaliya dadka waxa ka dhiman cadaalad iyo daryeelna ninka ku ballan qaaday ee ku qoray buugga barnaamij siyaasadeedka uu ku soo bandhigay habeenkii dhaweyd masraxii la isku yimiday ee uu ugu manna sheegtay nimankii la tartamayay isla markaasina uu kaga guulaystay waxay ahayd dalka waxa ku hogaaminaya cadaalad iyo daryeel iyo sinaan waxaan leeyahay codkeenu aado xisbiga cadaaladda iyo daryeelka mar labaad waxaan leeyahay xisbiga haddii aynu doorano isbedel baan helaynaa waxaanu ballan qaadaynaa gobolkan inuu noqon doono gobol dhammaystiran oo maroodijeex la siman oo tugdheer la siman oo awda la siman oo gobol buuxa ah gobolkan Gabiley astaantiisu waa green waa gobolka cagaaran xisbiga UCIDna astaantiisu waa green oo inta kadib xisbiga mucaaridka UCID waxa uu ololaha doorashada kaga qayb qaatay raashin uu qaybiyay dadka danyarta ah ee ku nool degmada Arabsiyo xisbiyada kale yihiin qaar turbaan iyo sameecada iyo waxa tumaya marka xisbiga dareerka iyo cadaaladda waxa weeyaan wax xisbiga dadka masaakiinta ka warhayay raashin u qaybinaya marka waxa loo baahan dadka masaakiinta la kafaalo qaado dadkuna waxa loo baahan inay u codayaan ninka wuxuu qabanay wax soo saaraya saasa ugu muhiim ah waxaan maanta aad ugu faraxsanahay waa maanta madaxweyne danaynaya dadka ahna madaxweyne u soo jeeda maanta dalkan dad jilaysan baanun dad u baahan baanun dad barakaysan baanun dad badan baanun ilaahay uu baahatana nabiil وعبد الرزاق أحمد هيان الكعسة سومني TV Gabiley